بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة ولا مركلة أي برنامج كين الدنبال شمعيه هراء أو أسبوعه هراء دنبال برنامج كان كهري وحنا كقصة ورناي فضج إلى ذا هاي ما ننتجمعه يعني تهاي ما عباده قيمة آدية دوينا كل احتاجن أو كل حلة إسلام كل حديث لا نرحب ضدك مسلمين تين كيف هيديستان maalintaasina ay noqon maalin xurto hadii habeen oo dhan aad soo jeedo salaada subaxad ka seexatay ilaa jumciyad hurday Allahu akbar maxad faa'iiday subhanallah bal waxaan isweydiinaynaa walaalayaal hadii aynu qodobka kaga soo gudubno oo mowduuca ka soo ranay maziyada iyo fadaayisha ay leedahay bal waxaanu ka waramanaa dhowr aadaab oo laga rabo maalinta jumcaha iyo sunan ay leedahay in maalinta jumcaha la ilaaliyo oo qofka muslimka uu ku dadaalo qofka muslimkii marka jimcihu soo galo salaada subax ugu horeysa ama salaada subax oo kamid ah shantii salaadood maalintaas ay lahayd salaad kamid ah ayaa waxa inoo sunnay markuu tukanayo qofku inuu ku tukado hadduu imaam yahay hadduu kaliya tukanayana oo jimcaana ku waajibina oo ku tukado hadii kalena jimca kula tukado inuu akhriyo labada suuradood suuratu sajda iyo suuratul insaan qodobka labaad marka ay fadaayil farabadan baa ku soo aroortay oo nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa tukan jiray labada suuradood qodobka labaad waa in loo degdego salaada arrinkan in badan oo dadka kamid way fudeydsadaan illa dadka aad moodo inay masaajidka soo galaan markay imaamku yiraahdo Allahu akbar qaarna iyagu hurda markaasna ay kacaan ka gaarsiiyaan salaada ay daqiiqad soo gaar qaarna ay tukanba Allahu akbar oo musiibo aad iyo aad weyn waxaan naftayda faa walaalahay ku waninaya inaynu arrintaas iyo daaga iyo cudurka iyo xanuunkaasi inaynu iska ilaalino oo aynu ka fogaano fadli farabadan bay leedahay in loo degdego salaadii ama jumcihi qofka saacada ugu horeeyay maada 6 qiyaastii meelaha iyo qofka yimaada markii imaamku uu fuulo minbarka isku fadli isku wanaagsan ma noqonayaan qodobka saddexaad oo kamid ah aadaabta والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن ما أنت جمعها يهبين كذا لفربضيو النبي قال صلى عليه الصلاة والسلام نبينا محمد هو حوله إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة مع المها أدليذهين يتضوض أوحى وفضل بدن ما أنت جمعها كو محيكو فضل بداتي ورثه ما أنت آذن لابوري وأنا ما أنت لقبتي وأنا ما أنت نفخذ أما صورة لافوفيو وأنا ما أنت صاعقة أما لمشهد الجود أما دعيتانك الجود أي دعص markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fa akthiru alayya min as-salati fihi waxdii safar badaysa salliga aniga adigu salliysan maalintaas jumcaha maxaa yeelay fa inna salatukum ma'rudatun alayhi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ii soo bandhiga salliga adigu salliysan ayuu aniga ii soo bandhiga inna allaha harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu u diiday ama uu ka xaaraantinimay inay dhulku ama carrada ama ciidu ay cunto jirka anbiyada marka fadli aad iyo aad weyn ayaa ilaahay qofka hal mar ku saliyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam 10 jeer baa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku saliyo fadliga oo kaliya hadii la sidaada ka warrama aan ba soo koobi karin idan marka walaalayaal aynu ku dadaalno inaynu farabadino saliga maalinta jumcaha waxa kamid ah aadaabta al-iqtisaal yawm al-jum'ah in maalinta jumcaha la soo meedo وكي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم سوريين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل منكم يتكين مريو جمعة حصوم مردو علماء حسكو خلافا مواجبة بصنة لكن واحد حسكو رأسين هاي أو لسكو فقسين هاي إن ما يرشد جمعه أي تاي شيء مشروعة أو إسلام كل حديث ميلوين أما ميسر كتاجن قالوا كشنات إنه قفكي يسصاعد ريو صاعد يدو صاحب للكيسة كوجو ناكسن سيدو كلنا وكود دالو إنه نوليو سنيال فربضان oo maalintaasi dadku ay dayaceen marka aadaabta ay leedahay maalinta jimcaha ayay ka mid qodobka lixaad waxa la inoo suneeyay inaynu akhrino suuratu al-kahf oo rasuulullaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam xadiiska culimada qaarna ay ضعف ku tilmaamaan qaarna ay quwayaan waxa uu leeyahay man qara'a suurata al-kahf yawm al-jum'ah adaa lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn qofka akhriya suuratu al-kahf maalinta jimcaha ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu iftiimiyaa nuur iyo iftiin inta u dhaxaysa labada jumce qodobka toddobaad
in ay waajib tahay marka imaamku khudbada akhriyayo in la aamuso yadna waxay leedahay aadaab marka khudbada la dhageysanayo in la aamuso laga iska ilaaliyo qofku inaanu qofka ku xiga taxta qalad sameeyo inaanu qaladkii ka qaban oo joojin wuxuu leeyahay bulufiso ida qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imam yakhdub faqad al-ghawt hadii walaalka ku ag fadhiyo oo hadlo oo damacday inaad aamusiiso adigna lagu baad ku dhacday la soco saas khudbadii kaaga buraysa ama fadligii jumcada kaaga buraysa qodobka sideedaad dadka qaar wax jireen inta iska soo habsaamaan imaamka khudbada uu bilaabo damcayna safka ugu horeeyo tagaan arinta noocaasa wala inoo diiday rasuulullaahi maxamed alayhi salaatu wasalaamna waa uu arinta noocaasa inkiray ama waa uu diiday marka qofku qooraha dadka uu dhibaateeyo dadka muslimiinta iska leexleexiyo ha ka digtoonaado haddaad markii hore soo habsaantay oo gaabiskaasi kugu dhacay oo dhibtaasi aad samaysay ha ku darsan inaad dadka muslimiinta dhib u geysato waa inaad ka digtoonaato qodobka sagaalaad haddii aad soo gaadho masjidkii oo salaadii jumcaha ee labada ragcadood ahaa laga baxay maxaad samaynaysaa ama aad la imaanaysaa waxaad samaynaysaa adigu maadaama aad jumcihii ka soo gaadhin inaad afartii salaadood ee duhurka aad tukato marka walaalayaal fadaa'il aad iyo aad fara badan iyo wanaagyo iyo sunnayaal fara badan bay maalintan leedahay waxa naftayda iyo nafaha walaalahay ku boorinaya inay ka faa'iideystaan maalinta qiimaha badan leh arrimaha la inoo sharciyayna ay ku dadaalaan inaasinu ku soo gabagabeynana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam wa billahi tawfiq subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk